soo dhaweyntii shalayto waxaan ka dareemay aniga iyo dadkii ila socdayba inayna soo dhaweeyeen kumanaan qof oo kulligood farxad iyo xamaasad ay ka muuqato waxaa kaloo ka muuqatay dadkana soo dhaweeyey intooda badan inay ahaayeen dad aad u da'ya oo dhalinyaro ah waxaa ka muuqatay marka aad fiiriso marka inaad ku farxaysid in dalkani uu leeyahay raasumaal in dalkani uu leeyahay mustaqbal in dalkan aad uga jeedo halkan iyo meelihii shalay aan soo marnay madaxdii berito in dalkan aad uga jeeday ama dhalinyaradii shalayto horteena taagneed aad uga jeeday in hamigooda iyo yididuuladoodu uu ka duwan yahay kuwa aniga iyo cabdiweli aan isku da'danahay sida shalay markii aad sida sharafta la ii soo dhaweyseen aan idiin sheegay waxaan dareemay in magaalada Garowe 20 sano oo dawlad goboleedka ay ahayd ay ku qaan gaartay inay fahamto wax may aan islaayahay weli dad badan oo Soomaaliyeed maanay fahmin waayo soo dhaweyntii shalayto sida aan sheegay waxa ka muuqday jacayl dawladnimo waxa ka muuqday bisayl iyo dulqaad waxa ka muuqday runtii ma aha inaan idinku amaanayo laakiin haddii aan qalbigayga ka hadlo soo dhaweyntii shalay waxa ka muuqatay dadnimo ku dayasho mudan waxaan aad ugu faraxsanahay marka idinkoo haysta xasilooni haddana inaad haysataan jaamacado oo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay jaamacada dhigato ama Muqdisho ahaato ama Garowe ahaato ama Boosaaso ahaato ama Kismaayo ahaato su'aashaan rabo marka maanta inaan isweydiino waxay tahay haddii 75% aan nahay dhalinyaro haddii aad jaamacada dhigataan waxaan rabnaa inaan isbarbar dhigno sida mustaqbalku u ekaanayo haddii aan u dhaqanno dawladnimo iyo sida uu noqonayo haddii aan ka faa'iideysan weyno fursadda marka hore 20 ama 30 sano oo soo socota kadib haddii Ilaahay idin gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed iyo dawladoodu waxa ay leedahay fursad aanay lahayn dalal badan oo dunida ka mid ah sababtoo ah maadaama dhalinyaradeennu ay yihiin hadda 20 jiro waxay leeyihiin xoog ay ku shaqeeyaan 20 30 40 sano soo socota marka wadamada dariskeena ama wadamada kale oo dunida oo ay ugu horeeyaan Yurub iyo wadamada horumaray ay shaqaalahooda iyo maskaxdooda iyo xoogoodu uu daciifi doono annagu waxaan leenahay xoog sababtoo ah dadkeenu waa dadkan hor fadhiya ku dhawaad 30 sano ayaan marka haddii aan nahay dadka Soomaaliyeed waxaan u muuqanay inaan dunida ka harnay maanta waxaan hor taalla fursad aan rabo dhalinyarada halkan jooga iyagu inay hormuud ka noqdaan waxaan rabaa inaad qaadataan masuuliyaddiina sababtoo ah halkan aad joogtaan waxaa ka soo baxday dhalinyaro yaryar oo ahaa kuwii ka qayb qaatay inay dhaliyaan xornimada wadanka kuwa ka qayb qaatay inay keenaan dawladnimadii naga duntay idinkaa ka dhaqaalo badan ka aqoon badan ka fursad badan waalidkiin ka dhaqaalo badan yahay sideebaad rabtaan taariikhdu inay idin xusuusato marka loo barbar dhigo kuwii halkan ka yimid oo iyagu dalka xoreeyay waxaa muhiim ah marka inaan isweydiino dalkeenna maxaa hortaagan maxaan u baahannahay maxaan ka wada shaqayn karnaa waa nasiib darro marka in maantay iyadoo dhibkaas uu nahaysto in adduunyada ay isku jirto tartankaas weli ayna hor taagan yihiin dhibaatooyin qabiil kuwa kala qoqobnaan waana wax ka baran ku dhawaad 30 sano oo la soo dhaafay waxa koow ka ah hadda aafadan cusub ee dagaalka ah ee tukaraq ee hor taalla waa in dagaalkaas lagu bedelaa xasilooni waa in lagu bedelaa horumar waa in lagu bedelaa midnimo
وإن نرادا دجالنا دون منه من لماذا أمة الصومالياتنا ومقدس dadka Soomaaliyeed meel kale aadi maayaan haday wax kala tirsanayaanna waa inay isu yimaadaan waa hadii aad dhalinyaro tahay haween tahay culimo tahay qof walba oo Soomaaliyeed waa inuu aqbalaa dib waxaan noogu filan 30 hore sano la soo dhaafay ku dhawaad